bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibayaal muuqaal kale cusub ayaan idin haynaa. Badii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo celiyay xasan sheekh maxamuud wuxuu dib ugu celiyay dowladda Kenya. sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo u safraya dalka Itoobiya iyadoo colaad weyn ay dhaxtaalo isagii Abiy Ahmed. waxaa halkaasi dhexdhexaad ka noqon doona Ismaaciil Cumar Geele ayaa garti galay. qodobyadaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaa. haddii aad kanaalka cusub tahay fadlan subscribe noo saar, muuqaalkana like wax badan ay naga caawinaysaa. aan ku bilaabay qodobka ugu horeeya ee maanta aan soo qaadan doono wuxuu noqon doonaa William Ruto oo ah madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in badda Soomaaliya loo xukumiyay in isaga maanta ay gacantiisa ku jirto uuna u gacan geliyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sidoo kale warbaahinta dalkaasi iyo BBC-da laanteeda afka Ingiriiska ayuu kula hadlay, wuxuuna yiri inaga hadda Soomaaliya waan la heshii karnaa oo qof aan isfahmi karno ayaa saaran. markaasi hadalkaasi wuxuu ula jeeday xasan sheekh maxamuud. sidoo kale wuxuu ku daray madaxweynihii hore ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in isaga iyo Kenya ay ka dhaxaysay colaado fara badan. Soomaaliya haatan waxay sii galaysaa dhanka iyo siyaasadda iyo waxyaabihii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isku xirxiray gudcur ay ku sii dhacaysaa. sidoo kale waxyaabihii la isku xirxirane dib ayaa loo furfurayaa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu yaqaano hoggaan xumo ayaa haatan wuxuu u dhaqaaqay in badda Soomaaliya uu siiyo dowladda Kenya. taasi waxaa markhaati ka ah hadalkii maanta oo ka soo yeeray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. sidoo kale waxaa hadalkaani kula midaysan dhammaan shacabkaasi dalka Kenya. patriotism-kii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inta badan uu ku celcelin jiray waxaa ka mid ah in qofka muwaadinka ah uu dhulkiisa ilaashto. madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo aan fiirinaynin xagga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dantooda, isaga wuxuu maskaxdiisa ka maagayo inta badan sameeyaa. hadalkani oo ka soo yeeray dowladda Kenya wuxuu cadeynayaa in xasan sheekh maxamuud iyo iyaga ay si fiican isku fahansan yihiin baddoodiina loo celin doono maadaama uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud haatan isagoo dalka hogaamiyo wuxuu doonana uu ka sameysan karo. sidoo kale William Ruto dhankiisa wuxuu si cad u qeexay shacabka dalka Kenya inaysan ka welwelin badda xaggeeda iyo wax walba ay u baahdaan Soomaaliya oo haatan isaga iyo dalka Soomaaliya madaxweynahooda ay isfahansan yihiin. inta badan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hadallada uu ku celcelin jiray waxaa ka mid ahaa in dowladda shisheeye ay arrimaha Soomaaliya ay gacanta ku hayaan, iyadoo arrimaha Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed gacanta loo gelinayo inaysan waxba jirin. sidoo kale hadalkani ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inta badan khudbadaha uu soo jeedin jiray wuxuu ku diri jiray in patriotism kala jeclaado qofka uu qabyaalada ka tago oo si aad u muuneeyo xagga iyo qaranka. hadalkan cajiibka oo ka soo yeeray dowladda Kenya wuxuu muujinayaa xasan sheekh maxamuud haddii badda Soomaaliya uu u wareejiyo dowladda Kenya in uu fadeexo ay ku noqon doonto iyo maamul xumadii lagu eedeyn jiray madaxweyne xasan sheekh maxamuud, iyadoo labad og yahay dalka inuu mar soo maamulay xasan sheekh maxamuud. sidoo kale ma jirin cid si toos ah oo la xisaabtantay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, iyadoo wadanka wax walba uu ka sameystay ayuu ka tegay. shacabka inta badan ma aysan taageersaneen madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu uu soo laabanayay, laakiin lama sheegi karo waxyaabaha si aadka ay u bunbuuniyeen baarlamaanka, taasi oo ahayd baarlamaanka in jeebka loo buuxiyay kadibna ay soo doorteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashadaani waxaa la sheegay in ay meesha lacag keentay. waxay aaminsan yihiin dhammaan taageerayaasha nabad iyo nolol haddii doorashada ay qof cod noqon lahayd uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo booskani oo soo fadhiisan lahaa. sidoo kale inta badan mucaaradka dowladda waagi uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hogaaminaya inta badan ay ka hordaayeen waxaa ka mid ahaa in qof cod haddii ay noqoto farmaajo oo ku cishto ilaa 30 sano ee soo socoto hadduu Ilaahay na gaarsiiyay in farmaajo uu sidaas u sii heesan lahaa. waa haddii ay dhacday inta badan waa siday aaminsan yihiin mucaaradka haatan dalka
dowladda ka ah. Go'aankii ahaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu heshiis weyn la galo dowladda Masar waxay ceeb iyo fadeexo niyad-jab ay ku noqotay dowladda aan deriska nahay ee Itoobiya. Sidoo kale Abiy Ahmed ayaa hadaladii uu halkaasi ka jeediyay Xasan Sheekh Maxamuud si aad ugu xanaaqay, iyadoo la filayo in 2 maalin kadib uu safri doono dalka Itoobiya. Halkaasi wuxuu kula kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed, halkaasi oo shir weyn ay ku soo qaadan doonaan. Sidoo kale shirkani waxaa dhexdhexaadin ka noqon doona ayaa la yiri madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu si dhow la shaqayn jiray dowladda Itoobiya, iyadoo la wada ogyahay dowladaha deriska la ah in uu mid ceeriyay midna uu soo dhaweystay, isagoo sheegay mid uu ceeriyay inaysan ka shaqaynaynin horumarka Soomaaliya, mid uu soo dhaweystana ay ka shaqaynaysay horumarka Soomaaliya. Iyadoo la wada ogyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in colaad weyn ay kala dhaxayso dowladda Itoobiya. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay Xasan Sheekh Maxamuud miyuu la soo heshiin doonaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed, iyadoo caro weyn uu ka qaaday hadalkii Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jeediyay dalka Masar. Iyadoo la wada ogyahay dowladda Masar iyo dowladda Itoobiya in ay ka dhaxayso colaad aad u weyn oo ku saabsan xagga iyo webiga. Inta badan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu la soo heshiin waayo dowladda Itoobiya, wuxuu kala kulmi doonaa caqabado fara badan taasi oo ku saabsan xagga iyo siyaasadda. Iyadoo la wada ogyahay dhammaan dowladaha deriska aan nahay inay yihiin dowlado inta badan cudow ka ah Soomaaliya, sidoo kale taariikhdooduna ay tahay taariikh mugdi ah, haddana waxaa la leeyahay way kala xanuun badan yihiin. Haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu soo dhaweysto dowladda Kenya uuna ceeriyo dowladda Itoobiya, taasi dad badan ayaa shaki ka qabo, maadaama la leeyahay inta badan hadda lagu eedeeyo siyaasiyiinta Soomaaliya qaar ka mid ah in uu soo dego qaadka Soomaaliya la keeno. Iyadoo la wada ogyahay dad badan, maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in qaadka Soomaaliya laga quuto marka uu fasaxayay in dad badan oo ka mid ah xagga iyo siyaasadda oo kala tashtay. Sidoo kalena dad ka mid ah madaxda dowladda kuwooda ugu sareyso haba ugu horeeya Mahad Salaad in uu si weyn uga cadaadiyay in uu fasaxo qaadka Soomaaliya oo laga keeno xagga iyo Kenya. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Xasan Sheekh Maxamuud uu soo kordhiyay waxaa ka mid ah dad badan waa siday aaminsan yihiin in qaadkani hadda la fasaxay uu dhibaato badan u keeni karo Soomaaliya, haba ugu horeysa in ay tuugada bataan lees dhibaateeyo. Qorshaha ku aadan qaadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ahaa dhammaan in la joojiyo qaadka, maadaama uu sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in qaadka uu dhibaato fara badan ku hayo bulshada Soomaaliyeed, sidoo kalena caruur badan ay u qadaan qaadka dartiisa, sidoo kalena qoysas fara badan ay ku kala tagaan qaadka dartiisa. Haddii kan Kenya la joojiyay, kan Itoobiya la fasaxay, muhiimadda sidaasi ma ahayn, muhiimadda waxay ahayd in kiskis loo joojiyo. Inta badan hadda waxaa la sheegayaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu qaadka joojiyay, qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed inay joojiyeen inay cunaan qaadka. Saaxiibayaal, muuqaalka intaan ayaan ku soo afjarayaa. Haddii aad kanaalka cusub tahay, mar kale waxaa ku ogeysiinayaa inaad subscribe noo saarto, muuqaalkan noo like garee si meel dheer uu gaaro. Aad iyo aad u mahadsantihiin.